markasta oo teleefankayga fariin ku soo dhacdo waxaa tahay qofka ugu horreeya ee maskaxdayda ku soo dhaca. haddii aan heli lahaa waddo aan kugula qaato daqiiqad kasta inta aan noolahay, waxaan noqon lahaa qofka ugu farxadda badan dunida. haddii dadka ay dhiirigeliyaan arrimo kala duwan iyo riyooyin, aniga dhiirigelinteedu waa adiga iyo mustaqbalka aan doonaya inaan yeelanno. waxaa tahay qeexitaanka dhabta ee quruxda. haybadaadu waxa ay ifisaa oo midabo qurux badan u yeeshaa noloshayda. waxaa tahay jacaylkaygii ugu dambeeyey. wax walba oo aan weligay jeclaa adiga aan kaa helay, sida biyuhu u bixiyaan dhirta, shidaalkana u dhaqaajiyo baabuurta. aniga jacaylkaaga ayaa ii ah awoodda aan nolosha ku wajaho. jacaylkaaga ayaa ii xoojiyaa marka aan daciifo. jacaylkaaga ayaa iga dhigaa qof dhoola caddeeya marka aan murugoodo, wuxuuna i siiyaa rajo marka aan rajo la'aan noqdo. aad baan kuu jeclahay. waxaad tahay fura qalbigayga. waxaadna nafta ku qabsatay dhoolacaddeyntaada xiisaha badan. waxaan ku ballanqaadayaa inaan weligay ahaado qof ku jecel. kama baqaayo inaan ku jeclaado, waxaan ka baqayaa inaan ku waayo. fadlan weligaa ila joog. waxaad u qalantaa nolol tan ugu fiican. waxaan rabaa inaan kuu sheego inaan ku danaynayo oo aan marnaba joojin doonin daryeelkaaga. waan ku jeclahay. waxaan kuu noqon doonaa garabka aad ku tiirsato, askarigaaga wakhtiyada dagaalka, qosolkaaga markaaad rabto inaad qososho, la taliyahaaga marka aad talo u baahan tahay. waxaasoo dhan waxaan u samaynayaa keliya si aan kuu tuso sida aan adiga kuu daryeelayo. waxaan rajaynayaa in maalin uun adiga iyo anigu aan weligeen wada joogi doonno. dhoolcaddeyntaada quruxda badani waxay qaboojisaa qalbigayga, waxayna igu abuurtaa xasilloonni heer sare ah. waad ku mahadsan tahay qaabka fiican ee aad iigu muujiso jacaylka.